بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan asxaabta ku xiran channelka aad iyo aad idin salaamaya kusoo dhawaada channelkeena Big DM Solutions war degdeg ayaan idinka daba geynayaa oo CJ on Style ah dhammaan dadka ku xiran CJ on Style ama dadka daneynaya hadda ka bacdi inay ku biiraan arrin degdeg ayaa igu soo ziyaaday oo raba inaan idinla wadaago dabcan maxay ahayd barnaamijkan CJ on Style kulligeen horta inteena badanba waxaan ahayn dad riski u bareeray oo riski wada qaatay run ahaantii maxaa yeelay wax badan baana looga soo sheegay shirkadani inay tahay niman tuuga ay yihiin oo scam ay yihiin laakiin haddana saas ay tahay waa ay shaqaynayeen oo lacagihii waa la dhiganaa wala waxaynayeen okay maxaa soo ziyaaday dhowr qodob waa rabaa inaan maanta ka hadlo qodobka ugu horeeya oo maanta nagu cusubaa waxa ay tahay in maxay ahayd meeshii aan geli jirnay oo shaqooyinka caadiga aan qaban jirnay in gabi ahaanba horta ay istaagtay dabcan markii aad ku dhufto meeshaas ama garaabka aan ku dhufto waxaan tegi jirnay maxay ahayd meeshii orderska oo shaqooyinka maalinta kontonka xaba la qabanayay ama tii kale ama konton iyo shan ha ahaato ama tan kale ha ahaato levelka markaas aad joogtid tii waxaa imaatay in maanta errorkaas uu soo baxo oo ah in maaragtay uu leeyahay is abnormal cilad baa jirta camal please contact the administrator dabcan maxay ka dhigan tahay sidoo kaleento withdrawga markii aan idhaahno optionkeeda waxaan dalbaday withdraw waan dalbaday rather meeshii la rabay inay withdrawga isoo gaaro waxaa meeshii dhacday in maaragtay wixii oo dhan la cancel gareeyey tiina ay keentay in maaragtay wax lacag oo maaragtay lala bixi karana aysan jirin hadda idin tusayaa markaa isku day inaan lacag la baxana sidaad arkaysaan please input the recharge amount okay confirm markaa iraahdo not completing the daily order uu leeyahay oo macnaheedu ay ka dhigan tahay macnaha orderska maanta lagu talagalay ma aadan qaban kontonka xaba aha saas darteed lacagtaas $125 ee aad dalbatay ma la bixi kartid taas macnaheedu maxay ka dhigan tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay warkii suuqa ku jiray inuu yahay rasmi in shirkadda CJ on Style ay joogto gabagabo ama ay finish tahay ee u dhamaatay dabcan horey baa saan oo kale loo yiri laakiin tani waxay u badan tahay 99% mid xaqiiqo ah maxaa yeelay war waxaan helay dad familiga oo ku nool dalka Switzerland waxay ii sheegeen yar ila dhashay oo jooga meeshaas wuxuu ii sheegay in ma aragtay shirkadda CJ on Style shirkadan oo CCG app la yiraahdo in shirkadii saxda ahayd oo CJ on Style ahayd ku taali Korea nimanka waxay ku yaalaan China nambaradooda WhatsApp-ka ayaad ka arkaysaa nambaradan arkayso furahooda ka bilaamayo +85 haddii aad geliso waa Hong Kong nambaradan ayaa laga leeyahay marka nimankani marka horeba China ku yaaleen shirkadan China ayay ahayd tuugay ahaayeen marka shirkadii saxda ahayd ee CJ on Style ee Korea laga lahaa oo isticmaalayeen magaceedii iyo maaragtay sumcadeedii ay ku qaraabanayeen iyo baalkii ayaa dacwad ka gudbisay Switzerland TV-yada Switzerland ayaana laga soo sii daayay sanadka 2023 bisha koowaad ayaana la balamiyay in la iskugu imaado dacwad maxkamad ah oo maaragtay laga soo dacwooday nimankan marka dacwad ay iskugu imaan doonaan oo maxkamad ayaa lagu qaadi doonaa marka kadibna kulay magdhow bay iska bixin doonaan marka nimankani waqtigani hadda barnaamij waxay keeneen la yiraahdo oo dad fara badan ay ku soo bilaabatay oo ahayd in la dhahayo insurance period ayaan ku jirnaa marka addresskan inta dadka withdrawlada laga xiro lacagaha inay la baxaan kadibna waxa la leeyahay account-kaaga waa inuu bixiyaa lacag insurance ah oo maxay ahayd sanadla ah oo sanad walba aan qaadno oo bil walba bilowgeeda aan qaadno
marka lacagtaasna waxaa lagu shubayaa account oo USDT ah oo maaragtay ka duwan midka anaga aan hadda ku deposit gareyno saa arkaysaan optionka depositka hadda waqti xaadirkan waa furan yahay waan awoodaa aniga inaan lacag inta soo qaado aan ugu shubo laakiin hay'aata ayay ka tahay dhammaan dadka janaalka ku xiran oo hadda rabo oo dareenayo inay CJ on Steel ay ku biiraan waxaan aad iyo aad uga digayaa in aysan ku biirin shirkadani dadkii hore ugu jiray ayaaba waxoodii ka waxismay dabcan markii horeba waxay ahayd qorshuhu in maaragtay wax aan ka sabri karna aanan gelino oo aysan caatifiyad iyo maaragtay emotional aysan qaadin oo aanan leveladaas kalena loo waxeynayo maxaa yeelay faa'iidooyinkan aad arkayso waalida laga sameynayo waxaa ka horeyso mar walba lacagtaada inay badnaato level 2 oo kale waxay ka bilaamaysaa saa u jeedaan $500 iyo wixii ka badan level 3 2,000 ay ka bilaamaysaa marka dabcan qofka in uu maaragtay lafihiisa ka soo celiyo ayaa waqti ku qaadanayso especially waliba dadkii muddadan ku sabray nimankani waxaa la aasaasay sanadkii hore 2021 bishii Agoosto marka almost waaba niman soo dadaalay oo 6 bilood ayay is soo hayeen marka qofka hadda ku biiraya iyo wixii hadda ka dambeeyo iyo maalmihii la soo dhaafayba dadkii ku biiray waxaan inii sheegayaa in wali optionkaas dadka akoonada lacagaha yararka ugu jiraan sida $30 $50 $100 waxaa laga yaabaa in maaragtay optionkaas ay idin furmato marka anaga waxa waaye dad waxaan nahay meesha ku soo cimriyay muddo 2 bilood aan ku jira aniga bishii December iyo January dad ba iga sii horeeyay 3 bil iyo 4 bil iyo 5 bilood ku horeeyay inta badan Soomaalida waxayna soo gaartay 3 bilood ee u dambeysay iyo 2 bilood ee u dambeysay ay Soomaalida maaragtay barnaamijkan si waali iskugu shubeen marka hadda arintaas degdeg ah ayaa soo baxday nimankaas dacwo ka taalo marka waxa waaye arintaas inay la socodsiiyaan ugu talagalay si aadan ugu qatalmin marka isku jira insha Allah taala maxay ahayd dabcan waxa waaye shirkadahan scammerska aad bay maaragtay ay maaragtay marba marka ka dambe u soo badanayaan oo systemkooda magacyo qaldan waliba especially isticmaalayo taasaaba ugu sii daranba marka dadka in ay inta badan ay maaragtay ay dhacaan ayaa maaragtay ay xoog ay saarayaan marka run ahaantii aad baan ugu xumahay in arintaas lagu dhacdo waa jecelnahay maadaama wadankii shaqo la'aan ay ka jirtay in dhalinyaradu ay hesho maaragtay fursado meel ay lacag ay ka sameyn karto dabcan haddii janaalkeena ku cusubta markii ugu horeysay ay tahay waa ku soo dhaweynaynaa janaalka subscribe noo saar si aad oo la socoto wax walbeeto oo cusub oo maaragtay aan janaalka soo dhigno iyo inta badan janaalkeena waxaan xoog saarnaa sida internetka lacag looga sameeyo sidoo kaleento waxaa jiro barnaamij kale waxaa jira aniga aan ku jira laftir ahaanteeda oo ah Intelligence Prime Capital oo Robert Forex ah run ahaantii barnaamijkaas waa barnaamij si ila tahay 100% sukuur oo la isku haleyn karo marka haddii aad rabtid inaad maaragtay internetka ka shaqaysatid lacag aad maal gashatid intaad maal gashan lahayd shirkad aan la hubin waxa ay tahay oo walibana shaki weyn uu ka jiro in maaragtay magaceedeen ay isticmaalayso waxaa ka fiican mid sukuur ah oo maaragtay ah in maaragtay aad maal gashatid marka barnaamijkaasna ka war doona janaalkeena YouTube-ka ah Nambik waxaan soo gelin Nambik DM Solution waxaa ka helaysaa fiidiyoyadooda ayaad ka heli doontaa insha Allah marka waxaan ka diyaarinay ilaa iyo dhowr video aan ka diyaarinay oo IB Capital ah sida account la iskaga diiwaan geliyo sidoo kaleento manasooyinka ah isticmaal sida KuCoin oo kale sida account cusub looga sameeysto ayagana lacagta la dhiganayo waxa waaye lacagtan USDT Tetherka oo tii la dhiganayo CJ on Steel oo kaleento oo USDT cryptocurrency marka shirkadaas robotkaas Intelligence Prime ka waa robot aad u fiican marka inta badan anaga waxa waaye wixina transparent waay waxaan jecelnahay mar walbeeto in aan dadka feedback ay soo dhiibeen commentiyada iyo dadka WhatsApp-ka nagala soo xiriiray oo feedback fiican siiyay oo maaragtay ku rafaasanaa barnaamijkan lacagaha dadka Soomaaliya jooga lagu rafaadiyay maaragtay dadka qaar ay sameynayeen oo lacaga waali ka waxeynayeen ama problem badan ay kala kulmeen ama dadka lacagaha kala dhumayeen
saad arkaysaan videoga idiin soo sameynay oo ah midka hadda ugu horeeya aad arkaysaan sida lacag looga bedelo lacagaha EVC-ga ama saadka loogu bedelo cryptocurrency. waxaa idinku filan kaliya bas videogaas inaad daawataan oo aad maaragtay stebyada aan marayo dhan aad daawataan. dib dambena uguma baahan doontiin insha allahu in maaragtay qof kale uu idin dhexeeyo uu balaayo iskaga keendhigo uu idin yiraahdo maaragtay lacagtan cryptocurrency-ga ayaan idin sarifaa intaas ayaan kugu waxaynaa. adinka ayaa maaragtay wax walba gacmihiina insha allah ku sameyn doona. cid danba idin dhici doontana ma lahan doonta insha allah inta janaalkeena uu maaragtay hawada ku jiro uu shaqaynayo. waxaan mar walba jecelnahay inaan dadku usoo gudbino programyada la isku haleyn karo oo iyo maaragtay wixii xog oo dhammaystiran oo ahayna iyo wixii annaga aan isticmaalayno oo ma naqaano inaan maaragtay dadka lugoyno. marka insha allah nala socdo janaalkeenana maaragtay ku xirnaada. haddii aad u baahan tihiin inaad faahfaahin dheer igala aad ka heshaan barnaamijkaas robotka ah dhowr videoyaan ka sameynay. marka videodaas daawada insha allah. intaas ayaan video kusoo gabagabeynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.